دومية مدنيال يعني waxaan rabaa inaan toos u guda galo qodobada aan rabay inaan ra'yigayga ka dhiibto qodobka ugu horeeya wuxuu noqonayaa qodobka 16aad faqradiisa koobaad iyo labaad faqradda koobaad waxay leedahay isdiiwaangelinta codbixintu waxay u furan tahay qof kasta oo Soomaaliya oo gaaray da'da 18 sano aqoonsiga qofka Soomaaliga ku xusan faqradan koobaadna wuxuu leeyahay waxa loo raacayaa sida uu tilmaamayo qodobka 29aad faqradiisa 8aad iyo qodobka 8aad ee dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka dhaqangalka ka meesha waxaan rabaa marka qodobada aad soo qaadateen oo meeshan lagu sheegay iyo waxa ku qoran waa kala duwan yihiin in la saxay u baahan yihiin marka qodobka 29aad faqradiisa 8aad waxay ka hadlaysaa horta wax la yiraahdo caruur oo sharcigu uu ku qeexayo dastuurka qodobka 8aadna wuxuu ka hadlaa afar faqro ka kooban yahay wuxuuna ka hadlayaa jinsiyadda iyo sidoo kale jinsiyadda in sharcigu ka soo saarayo golaha shacabka iyo qaabka lagu xadidayo helitaanka jinsiyadda iyo qaabka lagu weynayo iyo sidoo kale inaan qaabka qofka aan looga qaadi karin jinsiyadda marka waxaasoo dhan kama hadlayaan aqoonsiga qofka Soomaaliga waxa la yiraahdo طبعا marka ka hadasheen oo dhaadeen shuruucda kale dhaqangalka dalka ka waxaa jira sharci law number 28 oo soo baxay 22 December 1962 asaga ayaa qeexayo ka hadlaya qofka Soomaaliga waxa loola jeedo inuu aabi Soomaali yahay inuu degan yahay dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo inuu asalkiisu yahay Soomaali micnaheedu marka wuxuu yahay shuruucda kale dhaqangalka dalka ka markii la aado qof kasta qofka degan Djibouti iyo kan degan Jigjigo iyo kan Gaarisa degan iyo midka degan Muqdisho isku sii u codeynayaan way micnaheedu meeshaas marka waxaan u maleeynaa in laga maarmi doonin sharciga jinsiyadaha ee qodobkan oo tilmaamay dastuurka in la sameeyo in laga maarmaan tahay marka meeshaas waxay u baahan tahay sharaxaad gooniye in la raaciyo ama sharciga la soo dedejiyo si ay u suura gasho in la iswaafajiyo talaan qodobka 32aad faqradiisa afaraad ee ka hadlaya waxyaabaha ka reeban ololaha waxa la yiri waxa ka reeban xisbiyada inay ku ololeeyaan arrimo qabiil iyo kuwa diimeed iyo kuwa goboleys meeshan marka xisbi ayuu qofku ka tirsan deegaan doorashada waa loo geeyay kursigiina beela ku tartamay aleer qabiilkii abla sheegay moogta sharciga kama xishooninba 4.5 kiina la ilaaliyaa leeyahay dawlad goboleedna waxa la yiri deegaan doorasho ku ta say isku qabanay marka in la yiraahdo qabiilkiina waa la diidaa dawlad goboleedkiina waa la diidaa oo lagu ma ololay karo sharcigiina idinku qoranta meeshaas ma waafaqaydo aniga waxaan qabaa arinta ka hadlayda arrimo qabiil iyo arrimo goboleys inay sameeyay ku jirin sharcigaaba tilmaamo dimniyan u tilmaamayo talahan waxaan soo jeedinaa in meesha laga saaro qodobka 56aad faqradiisa labaad saddexaad shanaad iyo lixaad ee ka hadlaysa muddada qabashada doorashooyinka heer federaal waxay dib u dhici kartaa oo kaliya haday jiraan duruufo adag ayaa leeyahay duruufahaasna waxa lagu sheegay musiibo qaran nabadgelyo darro baasan oo dalka ka dhacda aafooyin dabiiciya dhul gariir cudurrada faafa abaaro baahsan fatahaado wabiyada iyo duufaano waxay soo jeediyeen guddiga marka la yiraahdo hadii arrimahaas farsamo ay u qabsoomi weydo doorashadu 6 bilood ayaa dib loo dhigaya hadii duruufahaas ay sameesha ka bixinna baarlamaankaasi jooga halay mudana gudoomiye mudanayaal ani waxaan qabaa qodobkan 56aad ee faqrooyinkiisa aan ka soo hadlay waxay ka soo horjeedaan qodobka 60aad iyo qodobka 91aad ee dastuurka ee xeerinaya in muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay ku mudaysantaa 4 sano sidaas daraadeed qodobkan waxaan qabaa meesha in laga bixiyo aafooyinkan iyo dagaaladan waxaan aad sheegaydiina dalkan hore uga soo dhaxay 64 doorasho la qabtay iyadoo Itoobiya dalka inta ku soo duushay qaybo kamid ah ay qabsatay ayaa doorasho dalkan laga qabtay waa tii Cabdirashiid Ali Sharmaake Allah u naxariiste oo raahdiisii ahayd gacanna oo ku footaynaynaa gacanna oo ku dagaalamaynaa baarlamaanka uu kor jeedi jiray xilligaas waxaa jooga Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Cabdirashiid Ali Sharmaake Allah u naxariiste labadoodaba taasi marka suuragal ma noqon karto cudurdaarna ma noqon karto qodobka labaadna wuxuu yahay 2012 doorashada 2012 markii doorashada la qabanayay abaar baahsan dalkan ka jira 250,000 oo Soomaaliya ayaa ku baaba'een oo ku leeday saasay taana dalka doorasho laga qabto
2016 ayadoo cadowgu joogo oo meel walba la qarxinayo ayaa inta laga tagay caasimadii waliba waxaa loo gudbay ii sheeg maxay ahayd dowlad goboleedyadii oo doorashada laga qabtay ani waxay la tahay marka cudurdaarka meeshan la gelinayo inuusan ku jirin sidaas daraadeed wax la yiraahdo extension oo ama baarlamaan loo sameeyaa ama madax loo sameeynaayo lama arko 27 December iyo 7 February madaxweynaha iyo baarlamaanku doorasho inay inta aadaan dadku u tagaan cod ka soo helaana laga rabo baarlamaanku waa inuu deegaanadiisii aado cod soo helo madaxweynuhu inuu tartamaa la rabaa laakiin in la yiraahdo aafooyin ayaa dalkan ka jira oo hore uga jiri jiray ayaa doorasho lagu baajinaa cudurdaar aan maqbuul ahayn waa sharcigana ka soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed ma aqbali karto waxaan qabaa marka qodobkaasi meesha laga tiro ma santiin